wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa waxa uu kormeer shaqo oo indhayn iyo kuurgalid ah uu ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Burco. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulanay albaabadu u xiran yihiin la qaateen isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo agaasimaha isbitaalka guud ee Burco. markii uu soo dhamaaday kulankaasi oo ay saxaafadda dibadjoog ka ahayd ayaa wasiirka iyo wafdigiisu waxa ay qayb u soo booqdeen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada Burco. intaasi kadib agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Casayre ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee gobolka iyo tan isbitaalka guud iyo sidoo kale halka uu marayo xanuunka COVID-19. isbitaalkan wasiir wuxuu adeegaa gobolada bariga Soomaaliland oo dhan ayuu riferaal u yahay. saaka u dambeysay iyo xalayba waxna loo keenay dhaawacyo laga keenay magaalada Buhoodle. waxa kale oo isbitaalkan u shaqeeyaa qaybo ka mid ah gobolka Saaxil iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. wuxuu bixiyaa adeegyada uu bixiyo isbitaalada secondary oo dhan. wuxuu daaweynta guud qalliinada guud. wasiir waxa ku soo biiray muddadii 2 sano ugu dambeysay isbitaalkan magaalada Burco oo aan ka jiri jirin adeegyada ay ka mid yihiin kaliya safaynta qalliinada lafaha iyo waxa kale oo ku soo kordhay in dhakhaatiir takhasusaad leh ay ku soo biiraan isbitaalkan magaalada Burco. waxa kale oo anagu maamul ahaan kor u qaadnay inaanu shaqaalaha isbitaalka la xisaabtanno si ay adeega bulshada u bixinayaan 3 shiftiba. waxa kale oo kor u qaadnay bilicda isbitaalka iyo nadaafadda isbitaalka annagoo kordhinay shaqaalihii ka shaqeynayay qaybta nadaafadda. waxa kale oo wasiir wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo isbitaalka guud ee magaalada Burco ku guuleysteen in shaqaalaha isbitaalka Burco si moralkooda kor loogu qaado oo ay dadkana si wacan uga adeegaan in mushahar joogta la siiyo. 3 sano ka hor 100 wax ka yar ama 120 qof ku umili jiray dumar ku umili jiray. maantana waxa lagu adeegaa waxa ku umula 400 marka u yar tahay hooyooyin baa ku umula. tan intii xanuunkaas bilowmay waxa isbitaal ahaan iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer annagoo mas'uuliyiinteedu isku dhan waxaanu aasaasnay treatment center lagu talagalay dadka xanuunkaas soo rito iyo isolation center taasoo ka kooban 30 sariirood oo 15 dumarkaan ugu talagalay iyo 15 ugu talagalay ragga. runtii muddadii ay xaruntaasi jirtay waxaan ku daweynay dad badan. waxaan ku daray oo maalin walba sameynaa in 3 waqtiba dadka halka ku jira cuntada halka lagu kariyo treatment centerka iyagana noogu diyaar qalabkii ay wasaaradda horumarinta caafimaadku na soo gaarsiisay. welina may dhicin intii imika aanu isbitaalka joognay in dadka oxygen u baahan iyo qalabkan waxayna ay kala bataan oo la oran kariyo adeegii caafimaad iyo dadkii soo dhacay sida wadamo badan oo adduunka ku dhacday way kala bateen. weli maynu gaadhin. baaritaanku wuu socdaa ilaa imika ilaa 150 ilaa 200 ilaa 170 qof ayaanu baadhnay. intaana waxa positive ahaa ama xanuunka laga helay waxay ahaayeen ilaa 24 qof oo rag u badnaayeen. imika xaaliyan waxa noo jiifa 7 sida agaasimuhu sheegay 5 dadkii laga shakeeyay xaaladoodu imika oxygen u baahan yihiin oo ay leedan yihiin imika iyo 2 qof oo positive ah oo meesha aanu imika ku hayno kuwaasoo xaaladooduna ay degan tahay. ugu dambeyn wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Ali Cabdillaahi oo hadalka qaatay ayaa waxa uu yiri dhowr bilood ka hor baan soo maray isbitaalka maantana waan eegay faraq weyn baa u dhaxeeya. taasina markaa waxay muujinaysaa in uu jiro qorshe iyo nidaam iyo go'aan ah in wax laga bedelo xanuunka adduunka aafeeyay COVID-19 cidna u gaar maaha. nidaam caafimaad oo walba adduunka jirana culays buu saaray aan hore loo filayn. qorshe qaran baynu samaynay. qorshaha waxa loo daadejiyay gobolada oo la xiriira wacyigelinta ama la xiriira shaybaarka ama la xiriira daweynta ama la xiriira in la helo agabka iyo socodka. maantu ujeedadiisu waxay ahayd in kormeer aanu samayno oo loo kuur galo
qorshayaashii hore loo dhigay halkee laga marayaa, maxaa qabyo jira, baahida taallaa maxay tahay, iyo annagu wasaarad ahaan sideebaa wax looga qaban karaa, iyo guddidii gobolka barasaabku ka ahaa hormuudku howlahay qabanayeen sidee laftoodii muxuu ahaa dardargelin lagu samayn karaa. wuxuu saameeyey arrimaha bulshada, wuxuu saameeyey dhaqaalaha, wuxuu saameeyey noloshii qofka ayuu saameeyey. taasi markaa waxaa keentay in qaran ahaan saameyntiisa la qiimeeyo oo dadkii ay saameynta tooskaa ku yeelatay amirtii aanu soo saarnay ha noqoto iskuulladii la xidhay ama dadkii shaqadooda ay saamaysay ama dadkii marka horeba ahaa dadka dhanyarta ah, taa lafteediina in qaran ahaan lagu xisaabtamo. waa Fahmi Kayse Xirsi, Bulsha TV, Burco.